badan markaan yaryareen waxaan aragnay kartoonka hadlaayo caruur yaryar oo muuqdo kuwa faraxsan oo ku ciyaarayo bannaanka laakiin sheekada dhabta ah ma aysan ahayn mid sida kartoonka loo dhigay kartoonkan wuxuu ku saabsan yahay caruur aan faraxsaneen oo lagu xiray meel yar muuqaalkan maanta waxaan ku baran doonaa sheekada dhabta ah ee kartoonkan laakiin ka hor inta aanan bilaabin haddii aad tahay markii ugu horreysa aadna soo booqatay ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kale nagu soo biirto haddaan u gudubno sheekada tinkey winkey iyo teltubes sheekadu waxay ku saabsan tahay xarun loogu talagalay caruurta maskaxda ka xanuunsan oo ku taalo Bulgaariya caruurta halkaasi joogtay waxaa lagu hayay xaalado adag waxaana lagu xiray qolal yaryar oo qabow iyo mugdi ah waxay quudan jireen hal mar maalintii mararka qaarkoodna waa la ilaabi jiray waxaa dhacday in dhowr ka mid ah caruurtaasi ay dhinteen isla maalin qura sabab la xiriira daryeel la'aan dartii mid ka mid ah caruurtaasi waxaa la oran jiray Lala waxay la dhalatay cudur wejigeeda ka dhigaya inuu mar walba u muuqdo cadeen xataa markii ay dhiban tahay Lala waxaa lagu xiray qol mugdi ah muddo 5 sanadood taasi oo keentay in maskaxdeeda xumaato sababtan awgeed midabkeedu wuxuu noqday jaalo maadaama aysan heli karin cadceeda inkastoo ay xanuunsaneed haddana mar walba waxay u muuqan jirtay inay faraxsan tahay kartoonka teltubes dabeecadda Lala waxaa laga sameeyay gabadhan ilmaha labaad ee ku jiray isbitaalka waxaa la oran jiray Thomas kaas oo isagana lahaa xanuun la mid ah kii Lala oo isna lahaa xanuunka wejiga ka dhigayo inuu u muuqdo qof mar walba dhoola cadeynaya Thomas wuxuu noloshiisa oo dhan ku qaatay isbitaalka wuxuuna la kulmay xanuun iyo dhibaatooyin badan mar walba waxa uu madaxiisa ku dhufan jiray gidaarka taasoo keentay in go'aan laga gaaro in lagu xiro banaanka qabowga ka jira banaanka ayaa sababay in farihiisa noqdaan buluug laakiin isaga iyo Lala waxay lahaayeen dhoola cadeyn joogta ah Thomas isagana dhoola cadeyntiisa joogtada ah waxay sababtay in dabeecadda labaad ee kartoonka laga sameeyo ilmaha saddexaad waxaa la oran jiray Danka wuxuu ahaa ilma 6 sano jir ah oo isna lagu xiray isla xaruntaas wuxuu qabay xanuun dhaxal ah oo aan lahayn awood uu ku hadlo luuqad kasta Danka ma cuno cunto kasta oo la siiyo mar walbana wuu matagaa qaala xarunta ma aysan ku fikirin in isbitaal geeyaan maadaama daaweyntiisu ay qaali ahayd Danki ayaa noqotay sababta loo abuuray dabeecadda diibsi ee kartoonka ugu dambeyn waxaa jirtay gabar yar oo la oran jiray Paulina waxay ahayd 2 sano jir oo nolosheeda dhan ku qaadatay isbitaalka laga soo bilaabo markii ay dhalatay waalidka Paulina waxay ka cabsadeen dhaawacyada iyo xaaladda caafimaad ee ay gabadhooda ku dhalatay waxaa la sheegaa in Paulina ay ku dhalatay xaalad caafimaad oo adag muuqaal ahaan iyo maskax ahaanba markii waalidka ay daryeeli waayeen waxay go'aansadeen inay gabadhooda ku wareejiyaan xarunta daryeelka maskaxda sidaa darteed xarunta isbitaalka ayaa noqotay meesha lagu hayo waxaa la sheegaa in maalmaha ka mid ah iyadoo Paulina jiifto shaqaalo sakhraansan oo ka mid ah kuwii xarunta ka shaqaynayay oo shiday dab si uu u kululeeyo meesha maadaama qabow fara badan ka jiray goobtaas nasiib daro dabka ayaa aad u kululaaday oo isu bedelay gubasho weyn intii ay Paulina hurdaysay dabkii ayaa ku soo dhawaaday waxaana gubtay jirkeeda dhaawacyada kulul ee soo gaaray waxay noqdeen kuwa xanuun badan oo sababay inay ka dhigto mid jir ahaan gubatay iyadoo maqaarkeeda noqday casaan maxaa yeelay dabka wuxuu gubay inta badan maqaarkeeda Paulina ayaa noqotay sababta loo abuuray dabeecadda bo ee kartoonkan caruurtan dhibaataysan ayaa sheekadooda sababtay in dabeecada kala duwan ee kartoonka teltubes iyadoo lagu salaynayo caruur aan faraxsaneen oo dhibaataysan laakiin dhibaatada ugu weyn ayaa dhalatay markii caruurtan laga kansalay daawashada TV-ga caruurtan dhiban ayaa telefishanku arkayay waxa kaliya ee farxad iyo madadaalo u keeno maadaama ay noloshoodu ahayd mid adag oo xanuun badan leh laakiin dabayaaqadii waxaa la sheegaa in shaqaalaha xarunta ay telefishanka ka qaadeen caruurta sabab la xiriira qarashka korontada ay telefishanka keenayso ay badatay maalinkii telefishanka waa laga qaadi jiray halka habeenkii loo keeni jiray caruurtu aad bay ugu niyad jabeen markii telefishanka laga qaaday maxaa yeelay wuxuu ahaa sheyga kaliya ee farxad u keeni jiray sidaa darteed caruurta waxay isku dayeen inay telefishanka qariyaan si aan loogu qaadin mar kale maadaama ay ahaayeen caruur maskaxda ka xanuunsan waxay ku fikireen inay telefishanka ku qariyaan calooshooda sababtaas awgeed caruurta waxay isku dayeen inay telefishanka jajabiyaan kadibna ay cunaan si ay ugu qariyaan calooshooda nasiib daro telefishanka waa wax aad u weyn oo aan la cuni karin isku daygaasi ayaa sababay in caruurta ay si daran u dhaawacmaan ilaa ay gaareen heer ay dhintaan waxaana la tilmaamaa in caruurtaasi la helay subaxdii iyagoo dhulka yaalaan oo calooshooda furan tahay iyagoo isku dayaya inay telefishanka calooshooda ku qariyaan taasoo keentay in ay geeriyoodaan dhacdadani ayaa ahayd mid aad u murugo leh caruurtan waxay u baahnaayeen daryeel iyo jacayl waxay ku dhibaataysnaayeen xaruntan oo ay ka waayeen daryeel waxayna ku noolaan jireen cabsi gaajo qabow iyo murugo sheekadan waa mid
xasuusinayso in carruurta gaar ahaan kuwa dhibaataysan ay u baahan yihiin daryeel, naxariis iyo fursad ay ku noolaadaan nolol caafimaad leh. qisada Tinkey Winkey halkaas ayay ku soo dhamaatay. haddaad halkaan nala soo gaartay, muuqaalka like saar oo asxaabtaada la wadaag.